من لزم الاستغفار قفكي جوجتي استغفارك جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب. حديث كسحولة قفكي جوجتي يا استغفر الله استغفر الله إلهي سبحانه وتعالى وحول بق أو كربة هيسته إلهي وكقاضى إريري كست وكجر إلهي وكسارة وحسن فيلين وربنا إلهي وصيا. سدح درس أواوين استغفار تأخري مالين كستو. درسي اللبات بقولال انت تجارسين كست جارسي hadalka bini aadamka aad ku celcelin lahayd iyo waxyaalaha kale aad dhihi lahayd booskiisa waxaad ku bedeshaa istikfaarta. saddex adigoo waxaad rabto qorshaystay ilaahay inaad weydiisato ilaahay weydiiso waxay doonta ahaato waad heli. soo wax dad badan laga yaabo inaysan intibaah goonaysiinin ama waxaan ula jeedaa waqti badan aysan gelin laakiin faa'iidadiisu aad u badan tahay. waxaa ka mid ah digriga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ah acmaasha kugu fadliga badan. digriga ilaahay waa badan yahay laakiin maanta waxaan ka soo qaadanayaa digri ka mid ah digriga ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aad akhriso inta ugu badan aad kari karto tiro go-on ma jirto. sababta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مؤمنين والله هذلي وحبضا إلهي حسا marka inta ugu badan aad gaarsiin karto. culimada kumaan kun ay tilmaameen laakiin awoodaada ku xiran tahay waqtigaaga ku xiran tahay. culimada qaarkood waxay dhaheen waxay ku xiran tahay iimaankaaga intuu leeyahay. qofka markuu dhikriga sameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala saddex shardi aan ka hormarinaa iyadoo kooban. shardiga koowaad waxaa fiican hadday suurtagal tahay adiga ilaah inaa wada tihiin si oo markaasi qabuul loo helo. laba ilaahay dartiisa inaad u samayso oo ilaahay aad ku raali geliso. saddex macaasidoo dhan inaad iska dhowrto noocay doonta ha ahaato midda muuqata iyo midaan muuqan waxay keenaysaa digrigaaga in la aqbalo. digriga ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka hadlaya waa duco waaye ducooyinka ka mid ah. ducadaas waa wada garanaysaan way kooban tahay laakiin haddii maalintii aad ku celceliso 1000 ama wax ka badan ama ugu yaraan 100 jeer ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabadu kuu furaya. waana dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala fi suurat nuux uu ku xusay marka nabigiisii nuux uu la hadlayay dadkiisa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay faqultu astaghfiruu rabbakum. waxaan ku dhahay dadkii uu la hadlayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiista inuu idin dembi dhaafo. istikfaar macnaheedu waxaa waaye dalab ilaahay aada leedahay ilaahu ii dembi dhaaf. marka dembiga ilaahay uu kaa dhaafo oo towbadaada ilaahay uu aqbalo albaabadaa laguu furayaa waxaad weydiisatan waa laguu ogolaanayaa niyadaadana isaafi tahay. marka waxaan soo qaadanayaa qiso ka mid a qisooyinka qof ku dhaqmay aayaddaas qur-aanka faqultu istakfiruu rabbakum. aayadda marka jawaabaa ku xigto oo ah yursil isamaa calaykum midraara ويمددكم بأموال وبنين. آيداسي waxay ka hadashay saddex arin oo wax walba hoos imaanayaan. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf aa weydiisato oo aad ku celceliso istikfaarta astaqfirullah 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 adoo meel fadhiya oo waxba aan ku kala goynaynin oo ilaahay adiga aad keli ku tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay albaabado dhan ayuu kuu furaya. qisa cajiib badan. nin waxaa jirto maalintii akhrin jiray ilaa 10,000 oo astaqfirullah. ninkaasi wuxuu rabay wuu helay. qisadoo kooban waata. maalin maalmaha ka mid ah waxaa safar galay imaam weyn aad wada garanaysaan imaam axmed ibn xambal. safarkiisii wuu dheeraaday marka wuxuu ku leexday xaafadda wuxuu ka raadiyey masaajidka ugu dhowaa uu galay. waqtiguu galay waxay ahayd waqtiga salaada maqribka ah. salaadii maqribka ahaa masaajidku ku tukaday. markuu ku tukaday nin sheekhu ahaa laakiin ikhlaasnimadiisa iyo isdhowrayo waxaa dhacday inuusan dadku isku sheegin. meel gooniu fariistay kitaabkiisuu furtay qur-aanku iska akhristay ilaa cishahuu sugay. salaadii cishaha markuu tukaday jamaaca ku tukaday
maadaama mugdi ay noqotay safarkuusan sii wadi karin wuxuu go-aan ku gaaray masaajidku inuu iska seexdo. masaajidka meel ka mid uu nidaamsaday boorsooyinkiisii wixiisii markuu gooni u dhigtay uu kala nidaamsaday ayaa waxaa u yimid ninkii masaajidka khaadimka ahaa wuxuu yidhi waxaad u egtahay qof musaafir ahaa uu dhahay waxaad u egtahay qof raba meesha inuu seexdo wuxuu yidhi haa meel kale aan seexdo dad aan ka aqaana ma jiro wuxuu yidhi lama ogola meesha in la seexdo. markaasaa wuxuu yidhi masaajidka lama seexan karo maya lama seexan karo marka waxaan kaa codsanaa inaad masaajidka ka baxdo. ninka markaa ma isku sheegin marka hadduu isku sheegi lahaa madaxuu saaran lahaa. dadka hore saasay ahaayeen waa isqarqarin jireen waa calaamadaha awliyada ilaahay ka mid ah dadka inaadan dadku isku sheegin waxaa tahay waxaa laga cabsanaya wax la yidhaahdo riyaa qofka culummada saasay ka cabsanayeen calaa kulli xaal. wuxuu sameeyey alaabtiisu urursaday banaanka masaajidka laga soo galo gees ka mid ah masaajidka albaabka laga soo galaya geeskiisa meeshaasu xaarxaartay asoo dhiganaya marka ninkii isaga wuxuu ku mashquulsanaa albaabada kale inuu soo xirxiro dirishadii inuu soo xirxiro. markii uu soo baxay ayaa wuxuu arkay sheekhii oo haddana dhinaci kale raba inuu jiifto markaasuu yidhi meeshaa maarata inaad jiifata haa meeshaan lama ogola. intaas kuma joojinin wuxuu sameeyey alaabtiisii isaga inuu soo jiiday foorno ku hor taalay masaajidka hortiisa meeshuu ku tuuray. ninaa fiirinayay marka ninaa isha wuxuu ku hayay markuu albaabka ka soo baxay markuu sheekha meesha xarxaarinayay wuxuu fiirinayay ninkaas wuxuu rabay albaabka foornada inuu xiro waa salaada cishaa kadib uu foornada xiri jiray. foorno iyo dukaan waay isku dhex yaalo macnaha furnooyinkii hore oo markaasi ceeshka iyo rootiga samayn jiray. calaa kulli xaal ugu dambeyntii ninkii markuu arkay meesha in lagu soo tuuray ayaa wuxuu yidhi waxaad u egtaa qof musaafira markaasuu yidhi haa. markaasaa wuxuu yidhi waxaad u egtaa qof aan haysan meel uu seexdo haa u dhahay meelaan haysta malahan oo aan seexdo. wuxuu yidhi kaali soo gal foornadeyda gudaha u soo gal ama dukaankayga markaad soo gasho waxaan ku tusin doonaa meel gooni ah oo munaasab ah oo aad seexan karto. waayuhuu dhahay wuu soo geliyey foornadii meel geesa oo nidaamsan boorsooyinkii wixiisu u dhigay wuxuu yidhi waxaan kaa codsanayaa meeshaan wax yar inay igu sugto howl cajiini waxaasaan dhammaynayaa markaan dhammeeyo waxaan markaasi meesha o dhan aan kaaga tegayaa intaas ka seexanaysaa markaasi kadib waqtigii munaasabka ku ah ayaad bixi kartaa ama salaada fajirka masaajidka aadi kartaa. waayuhuu dhahay sheekhii markuu isku sugay meeshuu fariistay marka wuxuu arkay ninkii cajiinka samaynayo oo ku celcelinayo astaqfirullah 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 ilaahu ii dambi dhaaf ilaahu ii dambi dhaaf. marka wuu wadaa marka hawshiisa xaggu aadaa waxbuu soo qaadanaya waxbuu isku toosinaya wuxuu dhammaystirayaa maba hadlayo astaqfirullah 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 astaqfirullah. ninkii marka sheekhii waa soo istaagay waa u yimid wuxuu dhahay kelmadan aa ku celcelinay sidaa igu soo duuduulaysa astaqfirullah maa leedahay wuxuu yidhi haa astaqfirullah. wuxuu yidhi sidaan ilaa goormaa samaynaysa ninkan waa caalim uu ogyahay waxa uu ku hadlayo uu dhahay wax weyn waayo. markaasaa wuxuu yidhi nolosheedu dhan aan sameeyaa uu dhahay markaan shaqaynayo markaan wax gadaayo keliya maahine marka wuxuu dhahay intee jeeroo dhahdaa astaqfirullah maalintii. nabigana waa ogtihin wuxuu dhahay inii la astaqfiru 100 mara rasuulka alai salaam aw 70 70 jeer ama 100 jeer isagoo dembigiisa loo dhaafay ayaa wuxuu yidhi intaasoo 100 jeer maalintii ama 70 jeer ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa dembina ma lahayn. waxay ku tusinaysaa intaasoo jeer marka la dhahayo in la badiyo. marka wuxuu yidhi 100 ma akhrisaa may 100 waa ka badan tahay uu dhahay 1000 waa ka badan tahay. markaasi kadib wuxuu weydiiyey su-aal ah markaad akhristo astaqfirullah ilaahay wax ma weydiisataa markaasuu yidhi haa waxaan rabaa weydiistaa. wuxuu yidhi ilaahay ma kuu jawaabaa markaasuu yidhi maba jiraba wax aan weydiistay maalintaasi oo ilaahay usan isiinin hal shay oo ilaahay iga soo daahiyo oo weli aan sugayo. markaasuu yidhi ma waxaad leedahay waxaa ilaahay weydiisatuu ku siiyaa maya ilaahay maalintii uu siiyaa ku dhahay waxaan weydiistay ilaahay maalintii wax iga maqan ma laha nolosha ugu fiicnaan ku jiraa laakiin hal wax aan jeclahay aan ilaahay weydiistay maadaama wax walbaba ilaahay uu isiiyey oo aan ku qanacsanahay waxaan aaminsanahay tanna ilaahay inuu isiin doono maxaa waaye uu dhahay. wuxuu dhahay cid inaan u sheega ma raba aniga ilaahay waay markaan weydiista ilaahu tan aniga adiga waay waxaan rabaa waxaas inaan helaan dhaha may waa kuu balan qaadayaa in magacaaga aan sheegi doonin laakiin waxaa qabanayso khayrka aan sheegi doono say dadka ugu faa'iidaystaan marka ma ii sheegi kartaa waxa kaa maqan oo ilaahay weli uusan ku siinin.
wuxuu waxa iga maqan uu dhahay ilaaha waxaan weydiistay waxaan dhahay ilaahow dembi dhaaf aan ku weydiistaa tiro ma tiriyo intaasoo kun adiga dartaada ayaan waxaan rabaa ilaahay dartiisa awooddaada oo aad leedahay oo wax walba aad ku samayso ma safri karo laakiin sheekh aan jeclahay jiro imaam aimada ka mid ah oo kutubtiisana aan akhristo ilaahu indhahayga iigu qabooji inaan arko isagoo nool sheekhaasoo ah imaam axmed ibnu xambal markuu dhahay imaam axmed ibnu xambal wuu ku soo booday sheekhii dhudhunkashuu bilaabay inuu dhudhunkado ninkii markaasaa wuu yaabay marka maxaa dhacay wuu dhunkanayaa marka wuxuu dhahay maxaa dhacay markaasaa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu igu soo leexiyey uu yidhi ducadaadii awooddeedii wuxuu igu soo leexiyey xaafadii ama magaaladii ilaahay subxana wa taala wuxuu igu soo leexiyey masaajidka hortaada ku yaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu iga soo saaray masaajidkii oo hortiisii inaan seexdo waa layga soo deediyey masaajid hortiisa in layga soo qaada gurigaaga foornadaada hortiisa laygu soo tuuray wuxuu yidhi waa awoodda ducadaada ilzam manaa wad daa'im ha kala joojin marka waxaan idin xusuusinaya aan kusoo gabagabaynayaa nebiga wuxuu yidhi xadiis oo la yiraahdo waa daciif xadiiska laakiin macnaahu saxiix macnaha xadiiska waa saxiix man lazima alistikfaar qofkii joogtay istikfaarka jacala allahu lahu min kuli hamin faraja ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب حديث كسحولة قفكي جوكتي استغفر الله إلهي سبحانه وتعالى وحول بو كربه هيسته إلهي وكقابه إريري كست وكجر إلهي وكساره وحسن فيلين وربنا إلهي وصيه صدح درس أواوين istikfaarta akhri maalin kasto darsiga labaad boqolaal intaad gaarsiin kasta gaarsii hadalka bini aadamka aad ku celcelin lahayd iyo waxyaalaha kale aad dhihi lahayd booskiisa waxaad ku bedeshaa istikfaarta saddex adigoo waxaad rabto qorshaystay ilaahay inaad weydiisato ilaahay weydiiso waxay doonta ahaato waad heli